shir jaraa'id oo maanta xafiiskiisa ku qabtay madaxa xarunta Awdal State ee magaalada Muqdisho mudane Cali Xaaji Xirsi ayuu wuxuu ka hadlay arrimo dhowr ah oo taabanaya shaqada maamulka Awdal State ugu horeyntii waxa uu ka hadlay Cali Xaaji Xirsi madaxa xarunta Awdal State ee magaalada Muqdisho isbeddelka xilka madaxtinimo ee Awdal State kadib markii madaxweynihii hore ee Awdal State uu ku biiray Somaliland taasoo uu ku sheegay Cali Xaaji Xirsi in ay ku ahayd khiyaano uu ku sameeyay maamulka Awdal State lana magacaabay madaxweyne cusub xilka madaxtinimo maamulka Awdal State baryahan dambe Soomaalidu waxay baratay ama dadka madaxdii waxay barteen in la isqa qabsado oo mataqaanaa lagu wixii markii u horeysay la isugu yimid lagu heshiin waayo oo la kala yaaco awdalna waxay ka mid tahay dadka dhaqanka dadka Soomaaliyeed bay ka mid tahay wax ceebaho weyn ku jiro waxa kuma jirto marka waxaan rabnaa inaan arintaas way dhacday inaan kabno mudane Rashiid oo si sharaf leh oo mudane Rashiid aw Nuur oo si sharaf leh oo qiimo badan dadka reer Awdal dibad joogi u soo doorteen dad aanay taageereen dadka gudaha mar alla markii la siiyay waqtiga 2 sanadooda waajibkiisa ka soo bixi waayay oo arintaas dhex fadhiistay halkii ay ahayd inuu bedelo oo uu geeyo dadkii doortay uu dib ugu celiyo arinta oo miiska saaro oo waxaana waan qabtay waxaasina way soo roobi waayeen hadii aan wax qaban kari waayana waan idinku soo celiyay halkii uu ka oran lahaa khalad weyn buu sameeyay waxaanu bahashii Awdal State la tagay Hargeysa waxaanu ku biiriyay SNM isagoon cidna la tashan anigoo ah Cali Xaaji Xirsi madaxa xarunta Awdal State waxaan marka waxba nalabu socodsiin dadkii gudaha joogay iyo dadkii dibadda joogayba oo ka soo dhuuntay sida awgeedna uu isdhiibay intaas markay dhacday wada tashi badan baan sameeynay dibadda iyo gudaha waan ka wada hadalnay waxaanu go'aaminay Rashiid mar hadduu isagu isdhiibay oo dambigaas isagu ummadda ka galay inaan isbedel ku sameeyno madaxnimada isbedel ku sameeyno oo nu doorano rag cusub ragaas la doortay waxa ka madaxweyne Awdal State waxa ka ah mudane Maxamed Cabdi Dugsiye waa madaxweynaha Awdal State ku xigeen waxa loo doortay Marwo Ifraax Sheekh Xuseen Abraar waxa kaloo la doortay wasiiro dhowr ah oo tiro badnayn si hawshu aanay ugu hawl maalmeedkooda u gutaan oo ay halkii uu Rashiid kaga tagay ka qaadaan taas waa taas mid labaad qodobka halkaas ku dhameeyay marka waxa weeye waxa maanta madaxnimadii haysta oo la wareegay Maxamed Cabdi Dugsiye saasa ummadda loo sheegaya waxana go'aansaday arintaas reer Awdal oo dibadda iyo gudaha jooga markay ka tashadeen dhanka kale waxa uu sheegay Cali Xaaji Xirsi madaxa xarunta Awdal State ee magaalada Muqdisho arrimo kale oo quseeya maamulka Awdal State oo ay qayb ka ahaayeen midnimada Soomaaliya inay tahay mid muqadas ah oo aysan ahayn mid laga bareeyay Somaliland inay soo raacdo Soomaalida inteeda kale waxa uu sidoo kale ku sii daray xasuuqii Awdal State loo geystay 4 February sanadii 1991 xilligaas oo ahayd xilligii ay gooni isu taagtay Somaliland wuxuuna sheegay wada hadalka dawladda iyo Somaliland inay tahay mid maamulka Awdal State uu ku qanacsaneen loona baahan yahay in Somaliland laftirkeeda ay raali gelin siiso walaalaheeda Awdal State kana raali geliso xasuuqii ay u geysteen 1991 waa sida uu hadalka u dhigay dadka reer Awdal iyo saddexda kale ee qabiil oo mataqaanaa degan halkaas marnaba ma ogolaanayaan mana ogola raalina kama aha in la kala go'o midnimada Soomaaliya xaggayga waa muqadas reer Awdalna qof walba inan yarba oday walba gurigiisa calankii jamhuuriyadda Soomaaliya ku haysta halkaas ay mataqaanaa saasay aaminsan yihiin mana dhici karto in la kala go'o mana ogolin lacalla hadii ay noqoto inay wuxuuna isbedelaan ajanda kala noo qarsoon ajandahaasna maanta ma sheegayno sababta aanan u kala go'i karayn ee u aaminsanahay midnimada Soomaalida waxa weeye gobolka Awdal oo waqtigeedii hore magaalo madaxdu ahayd Saylac waxa weeye
meeshii ugu horeysay ee qaran Soomaaliyeed lagu dhiso ee nin Soomaaliyeed oo mataqana asli madax ka noqdo waa Axmed Gurey waa ragiisii kale Amiir Nuur ragaasina originally marka la eego shirkan jaraa'id ee uu maanta ku qabtay xafiiska uu ku leeyahay magaalada Muqdisho madaxa xarunta Awdal State ee Muqdisho Mudane Cali Xaaji Xirsan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee uu ku qabtay Muqdisho tan iyo markii la magacaabay madaxweynaha cusub ee maamulka Awdal State xilkana laga qaaday madaxweynihii hore Masrakiin Xaashi Nuure Royal TV Muqdisho.